السلام عليكم. صدركيسا waxaanu dhex maraynaa goob saxara ah. waana dhulka taariikhiga ee Masar. goobtan waqti aan fogeyn ayaa la helay. waana taariikh cajiib ah haddii aan idinka sheekeeyo. dhulkan waxa mari jiray Nabiyullah Muuse calayhi salaam. waxaana loo badinayaa dhulka Quraanka lagu sheegay ee ceelashii reer banu Israa'iil ay ka cabeen. waxaana sababtooda iska lahaa Nabiyullah Muuse calayhi salaam markii Alle subxaanahu wa ta'aala uu soo amray. waxaa la sheegay reer banu Israa'iil inay la daaladhacayeen markaa haraa tiro badan iyo biyo la'aan goobtani haysay. laakiin ceelashan tirada badan Alle subxaanahu wa ta'aala ayaa u tilmaamay Nabiyullah Muuse calayhi salaam. jawi ahaan dhulkani aad ayuu u kulul yahay. ceelashani waa kuwo ka mid ah kuwii ay ka cabeen reer banu Israa'iil ee uu siiyey nabigeena Muuse calayhi salaam. ceelkan oo keliya maaha, ceelal tiro badan ayaa ku yaala goobta oo dhammaantoodba ay ka cabeen reer banu Israa'iil. laakiin si walba ha noqotee markii dambe way caasiyeen suubanaheena Muuse calayhi salaam. halkaa waxaa idinka muuqda kanaalka Suways. waa biyaha goobta ka shisheeya ee halkaas ku soo yaalla. kanaalka Suways caan ayay ku tahay dalka Masar. meelo fara badan oo uu maro ayaa jira. waana mid ka mid ah kanaalada ugu waaweyn ee maraakiibaha iyo doomuhu ay iskaga gooshaan dunida marka ay sidaan badeecooyinka kala duwan. jawiga goobtan waad arkaysaan inuu yahay goob aad u kulul. qofku marka uu booqdana waxa uu ka dareemayaa ama uu ka dhannansanayaa in goobtan ay tahay goob taariikhi ah oo dunida ku yar. inkastoo la sheegay inuu maray suubanaheena Muuse calayhi salaam, haddana weli taariikhdu ma hubto. laakiin marka la arka qaabkii waxu yaallaan waa suurtagal inay tahay goobtii ay ka cabeen reer banu Israa'iil. dalka Masar ayaa badankeedu taariikhi ah, waxaana inta badan lagu naanaysaa dhulkii taariikhiga ama dhulkii qadiimka ahaa. Masar waa mid ka mid ah waddamada cajiibka haddii aad tegtid goob walbaaba taariikh khaas ayay u taallaa. waana dhulka ugu badan ay booqdaan dadka kala duwan ee caalamka marka ay rabaan inay taariikhda dhabta ah soo arkaan. halkan waa mid ka mid ah goobaha taariikhiga dhabta ah. waxaana la sheegay inay jirtay in ka badan 3,200 sanno. waana qiyaasaan xilligii halkan uu ku noolaa nabigeena Muuse calayhi salaam. si walba ha noqotee dhulkani waa mid taariikhi ah. haddii aad tegtidna aad ayaad ula yaabaysaa, waxaadna ka dhannaansanaysaa inay tahay dhul qadiim ah oo ka soo hadhay dadkii hore. taariikhyahanadu aad ayay ugu raaxaystaan markay taariikhahan oo kale marayaan. Masar waa dhulkii taariikhda. meel walba ay taariikhi tahayna waxaa tagta oo daydaya dadka taariikhda wax badan ka yaqaana.